subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u jeer group wararkeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka iyo Dabaasha TV oo subaxnimo Jimcaha taariikhduna waxay ku beegan tahay 3 Maarso sanadka 2023 macluumaadka ugu waaweyn wararkeena saaka Jimcaha aan kula wadaagi doono waxa qaybka dagaal culus oo saaka ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaal xalay bilowday ilaa saaka ka soconaya xogta Laascaanood ee dagaalada culus ee halkaas saaka mar kale ka qarxay iyo faafahinta ayaan ku soo gudbin doonaa Somaliland oo ka digtay soo daabulida ciidamada faraha badan ee Puntland ku soo daabulayso Laascaanood iyo waxa ka dhalan kara Somaliland oo xog la yaab leh soo bandhigto la xiriirta in dawladda Soomaaliya iyo Puntland ba ciidamadooda dhan ay isku keeneen difaacidda magaalada Laascaanood macluumaad arrintan ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale waxa qaybka laba wasiir oo tareenka madaxweyne Xasan Sheekh ay tahay in laga dejiyo kuwaas oo dawladda Soomaaliya durba ku bilaabay qalqal xoog leh waa kuwii labada wasiir ee hadda la farmuuqay ee madaxweyne Xasan loogu baaqay in baskiisa tareenka uu ka saaro labadaas wasiir iyo xogtooda ayaan ku soo gudbin doonaa waxa kale qaybka Villa Soomaaliya shaacisay sababta hadda loo hakiyay dagaalka al-shabaab loogu jiray ee ka soconaya koonfurta Soomaaliya bishii Febraayo ilaa Maarso waxa hakad ku jira howlgalka dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxtooyada waa ay shaacisay sababta loo hakiyay faafahinta ayaan ku soo gudbin doonaa saddex dal oo Soomaaliya ciidamo u soo diray kuwaas oo ka madax bannaan howlgalka Midowga Afrika dalalka safka hore oo durba ciidamo soo diray tirada ciidamadaas iyo waqtiga ay howlgalka ku soo biirayaan faahfaahintooda ayaan ku soo gudbin doonaa kama marna macluumaadkii ugu dambeeyay ee Kismaayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa kulamo aan loo kala kicin Kismaayo kale xogtii ugu dambeysay kulamadaas ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadani kuba kale ayaa saaxiib yar warkeena saaka aad ku daawo doontaan qayb ka noqon daawadayaasheena ku xidhan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo Dabaasha TV calaamada guduudan ee ku muuqata subscribe noo dhig gambalelkana taabo nagu sabiir waxay ka dhigan tahay qayb ka noqoto daawadayaasheena sida maalinlaha ah u hela xogta iyo wararka halkan aan ku baahino subax wanaagsan soo dhawaada saaxiib yaal dagaal ayaa xalay saqdi dhexe ka bilowday magaalada Laascaanood ilaa ay saakina ka soconaya magaaladaas xogtii ugu dambeysay ayaan kula wadaagi doonaa galbeedka magaalada ayaa saaka la soo sheegaya in dagaal xoogan uu ka soconayo dagaalkaas wuxuu qarxay xalay saqdi dhexe 10kii fiidnimo xalay ayaa la sheegay in dagaalku bilowday kadib markii rasaas xoog leh dhinacyadu isweydaarsadeen gaar ahaan galbeedka magaalada dagaalka xalay 10kii fiidnimo bilowday ayaa la sheegay ilaa inuu gaaray 1 habeenimo ee xalay saqdi dhexe iskiisa ayuu u qaboobay inkastoo xog badan ee faahfaahin aan laga helin saako Jimcaha ayaa mar kale dagaal xoog leh ka qarxay galbeedka magaalada dagaalka saakis wuxuu u muuqdaa isku dhacyo ciidamada ah inuu sababay dagaalka xoogiisa faahfaahin badan lagama heli karo maadaama isgaarsiintu ay mid daciif ah dagaalku ka soconayo duleedka magaalada meel magaalada u jirta 15 kiiloomitir oo Laascaanood u jirta ayaa la soo sheegay in hadda dagaalku ka soconayo waana galbeedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in Laascaanood mar kale dagaal uu ka qarxa wax weyn ma ahan marka la eego gurmadida ciidan dhinacyada soo kala gaaray iyo ciidamada Somaliland oo wali u caboon qabsashada Laascaanood iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ina helay taageero aan qarsooneen oo ina raba difaacidda magaalada Laascaanood oo 20 maalmood ay ka dagaalamayeen waana farqiga labada dhinac u dhaxeeya xabadda saaka ka socota Laascaanood ayaan ilaa hadda la ogaan karin qasaaraha ee faafahinta dagaalkan laakiin macluumaadan helaya xaqiijinaya in qasaaruhu jiri karo haddii dagaalkan uu sii socdo sababta ugu weyn waxay tahay meesha lagu dagaalamayo waa dhul buuro ah oo cidla ah tani waxay keeni kartaa in dhinacyada qaar qasaaruhu soo gaaro oo la kala taal roonaado aysan suurtagal ahayn in sidaan lagu sii horfadhiyo sida ay qireen dadka qubarada ah ee aagaga dagaalka ku sugan oo dhul buuro ah oo cidla ah tani waxay keeni kartaa in dhinac ka mid ah si fudud looga adkaado dhinaca kale Somaliland ayaa sheegtay in Puntland markan ciidamadeeda dhan ay isku keentay magaalada Laascaanood iyo siday u difaaci lahaayeen Somaliland ayaa ka digaysa markan in dandaansiga Puntland iyo ciidankeeda in Laascaanood lagu arko Somaliland ayaa sheegtay in xog ay ku heshay weerar maalmaha soo socda ay damacsiin ciidamada maamulka Puntland inay ku soo qaadaan aagaga difaaca ciidanka Somaliland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Laascaanood
warkan xalay ayay sii daysay Somaliland waxayna sheegtay in ciidamada qaybahooda kala duwan sida ciidanka BSF iyo ciidanka BMBF oo Imaaraadku ay tababaraan in Puntland ay keentay magaalada Laascaanood oo ay rabaan in weerar ku soo qaadaan ciidamada Somaliland oo ilaa 10 ilaa 15 kiiloomitir u jira magaalada oo saldhigyo military ku leh waxay intaas raacisay inay xaqiijiyeen oo ila madax bannaan ay soo sheegeen isla markaana ay ogaadeen in ciidamo badan oo dawladda Puntland waa maamulka Puntland leeyahay oo Imaaraadku ay soo tababareen oo ay tababar iyo qalab casri ah lagu soo daabulay magaalada Laascaanood ciidankaas oo la rabo in weerar ku soo qaadaan saldhigyada military ee Puntland saldhigyada military ee Somaliland ay ku leeyihiin duleedka magaalada warkan ka soo yeeray Somaliland waxa intaas lagu daray oo la xaqiijiyay in madax bannaanida dhuleed iyo waliba midda caalami ee la rabo Somaliland in la dhaawaco waxayna caalamka ku wargelisay halistan cusub ee Laascaanood iyo wixii ka dhashay mas'uuliyadda inuu qaadayo maamulka Saciid Cabdullaahi Dani sidaas waxa yiri wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland waxay intaas raacisay in gudaha dhulkeeda ay soo galeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland ay leedahay sida ciidanka BSF iyo ciidanka BMBF oo Imaaraadku tababaro kuwaas ay ku eedeeyeen weerar ku soo qaadeen deegaanada Somaliland haddana Laascaanood ku sugan yihiin wasiirka gaashaandhigga Somaliland wuxuu sheegay inay qaadi doonaan nooc walba oo tallaabo ah oo maamulkiisu isku difaaci doono maadaama ciidankan ay ku soo xadgudbeen madax bannaanida Puntland waxay goosatay in cadawgeeda hadda ay la dagaalanto ma ahan wax cusub waxaan cadeynaynaa in wixii dhib ah ay halkaas ka yimaadaan mas'uuliyadda ay qaadi doonaan maamulka Puntland maadaama Laascaanood oo deegaanada Somaliland ay ciidanka Puntland hadda ay ku soo xadgudbeen ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga Somaliland ayaa wulul xoog leh ka muujisay ciidamada sida qaaska tababarka u haysta ay tababartay dawladda Imaaraadka Carabta ee loo yaqaan BSF iyo BMBF kuwaas oo la sheegay in hadda lagu soo daabulay Laascaanood ma ahan wax qarsoon in Puntland ciidamadeeda dhan ay isku keentay magaalada Laascaanood iyo waliba aaga Tukaraq oo ciidamada Puntland hadda ay joogaan waxaase hadda Puntland ay la sheegay in si toos ah dagaalka ugu soo biirtay iyadoo u aragta fursad weyn in la naafeeyo Somaliland maadaama Puntland ay rabto in gobolka Sool oo dhan ay hadda xaqiijiso in gacanteedu soo galay wixii ku soo kordha xaaladan saaxiib yaal wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa maxaa ka soo kordhay Kismaayo ayaan ku soo gudbiyo markan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeenkii labaad xalay ku yidhi magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayadoo faahfaahin macluumaad cusub uu ka soo baxayo kulmada u dhaxeeya Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale madaxweyne Xasan madaxweynaha Soomaaliya ayaa Kismaayo u gaaray 3 ajando sidaan xogta ku helnay ajandaha koowaad ayaa ah in wajiga labaad ee dagaalka oo hadda loo soo waciyay dhanka Jubbaland laba in Axmed Madoobe uu aqbalo ciidamadii lagu soo tababaray wadanka Eritrea ee tirada badan ee hadda Muqdisho ku sugan in kun ka mid ah ciidankaas la geeyo magaalo xeebeedka Kismaayo si ay qayb kaga noqdaan dagaalka oo Axmed Madoobe wuxuu diiday ciidamada Eritrea isagoo shaki ka qaadan ciidankaas aan la keeni karin magaalo xeebeedka arinta kale waxay tahay qadiyada gobolka Sagado oo madaxweynuhu kala hadlay Axmed Madoobe Axmed ayaa sala sheegay in diidmo xoog loo ka keenay ciidamada lagu soo tababaray Eritrea in Kismaayo la keeno asagoo wulul xoog leh ka muujinaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay habeenkii labaad kulamo xoog leh ay yeesheen asaga Axmed Madoobe lamana hubay ilaa hadda Axmed in lagu qanciyay in kale faahfaahin badan lagama helin xog badan lagama helin kulamada Xasan iyo Axmed Madoobe ee Kismaayo ka dhacay marka la eego natiijooyinka la soo calaamadiyay laakiin xogaha hordhaca ah ee la helaya xaqiijinaya in Axmed Madoobe uu si fudud ku aqbali doonin ciidamadan laga soo qaadi doono magaalada Muqdisho ee in la keena Kismaayo ay tahay wax aad u adag kulamadaas wixii ku soo kordha wararkeena kale ayaan ku eegaynaa laba wasiir oo ay tahay tareenka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in laga tuuro tareenka ama baska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda u muuqanaya mid ciriiri ah oo ay leecayaan shakhsiyaad waaweyn oo aan ku habooneen si wadida tareenkaasi hadda marka la eego fashil siyaasadeed iyo durba waxaa soo baxaya dhaliilo waaweyn oo dawladda madaxweyne Xasan loo jeedinayo sidoo kale iska qabsiga qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa aad u xooggan waxaana sii xumaanaya khilaafka madaxweynaha iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka waxaa gaabis soo galay howlgalkii ka
ka dhanka al-shabaab amniga caasimada ayaa u muuqanaya inuu sii xumaanayo hal sano oo madaxweynaha u buuxsami rabta ayaa hadda madaxweynuhu wuxuu wajahayaa dhaleeceyn siyaasadeed diidmo xoog leh amni xumo dagaalkii oo xagad galay intaasoo dhan dadka khubarada ayaa ku qeexaya inay tahay in madaxweynuhu loo baahan yahay waqtigan wixii ka dambeeya oo isbedel uu sameeyo sidoo kale beelaha qaarkood ayaa hadda cabasho xoog la muujinaya beelaha digli mirifle go'aan ay ku dhawaaqeen beesha xawaadle ayaase kasii horeysay beelaha daarood hore ay u diideen maamulka xasan tanina waxay ka dhigantaa diidmada beelaha inay tahay culays kale aad u weyn oo madaxweynuhu wajihi karo waxaa dhinaca kale madaxweynaha dhowr qabaa'il oo ah beelaha hawiye digli mirifle beelaha daarood beelaha dir ay u muuqdaan inay ka quusteen dowladda madaxweyne xasan arinta ugu weynsa dowladda hadda ee ka dhaqaaqi laadahay waxaa lagu qeexay inay tahay laba dhinac waa dhinacna wuxuu yahay xisbiga daljir oo ah xisbi oo golaha wasiiradiisa qayb weyn laga siiyay dowladda iyo xisbiga madaxweynaha UDP isku milanka daljir iyo UDP ayaa ah waxa ugu weyn hadda dowladda xasan ee ka dhaqaaqi laadahay waxaana kuwa sababay in hadda lala dagaalo oo qabaa'ilka maamulada qaarkood ay ka soo horjeestaan nidaamka madaxweyne xasan ayaa loo soo jeediyaa in hadda baskiisa uu ka dejiyo xubnaha xisbiga daljir uuna isku soo koobo laakiin haddii daljir uu meesha ka saaro madaxweyne xasan wuxuu ka baqayaa xubnaha daljir inay bilaabaan mucaaradnimo iyo dagaal dowladdiisa ay la galaan waxaase la soo sheegay in shakhsiyaadka xilaalka waaweyn ka haya xisbiga daljir ee dowladda ku jira oo hadda loogu baaqay madaxweynuhu inuu xilaalku ka qaado xubnahaas waxay kaliyiin wasiirka arrimaha gudaha axmed macali fiqiim wasiir dowlaha madaxtooyada abshir buqaari iyo weliba saabir shuuriye iyo xubno kale oo mashruuc waaweyn la siiyey kuwaasoo xisbiga daljir ka mid ah oo dowladda loogu baaqay in hadda ay ka saaraan gaaraha madaxweyne xasan baskiisa si uu u yaraado iska qabsiga iyo khilaafka dowladdiisa hadda ay wajahayso dowladda iyo qabaa'ilka isma hayaan dowladda iyo qaar kamid maamul goboleedyada isma hayaan waase khilaaf weyn oo aan la qarin karin siday qabaan dad khubaro ah waagaag daawadayaal subax wanaagsan warbixinadan ayaan kusoo koobi doonaa warbixinadan kale ee la xiriira dalalka Soomaaliya ciidamada u soo diray ee aan amisom qaybta ka ahayn wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa haddii la raali ka noqdo subax wanaagsan nabadgelyo